waa qaar ka mid ah senatarada haweenka ah ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta soo booqday xarunta qaran ee lagu diyaarinayo raashinka qalalan ee loogu talagalay ciidamada xoogga iyo kuwa deegaanka ee gobolada dalka ka wada dagaalka looga soo horjeedo Al-Shabaab. Haweenka senatarada ah ayaa waxa ay halkan soo gaarsiiyeen raashin ay uga qayb qaadanayaan dadaalada caasimadda ka socda, waxaana ay u mahadceliyeen haweenka gobolka Banaadir. maanta waxaa sharaf iyo karaamo noo ah inaan soo booqanay amaan deeq raashin oo ugu talagalnay soo gaarsiinay xarunta lagu diyaarinayo sahayda qalalan ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee qawaarijta la dagaalamay loogu talagalay ay hogaaminayso gudoomiyaha gobolka Banaadir ee haweenka Soomaaliyeed ee maamo Abaay Jawaahir Baarqab iyo gabdhaha gobolka Banaadir ee u heelanaa maalintii sanadkii hore oo dagaalka la dagaalanka qawaarijta oo bilowday ilaa ay hadda inay diyaariyaan ay ciidamada la garab istaagaan sahayda qalalan oo dhowr nooc isugu jirto leh oo ciidamada qalabka sida ee dagaalka ku jira aad u anfacday oo aaga dagaalka lagu geenayo inta baabuur lagu qaado annagoo ah gabdhaha aqalka sare ee maaragtay senatarada ah waxaan garanay ama maaragtay go'aansanay inaan maaragtay garab istaagno ciidamada qalabka sida oo sahayda meesha loogu diyaarinayo nimaano shaqadii wax ka qabano raashinkii aan ku deeqnayna keenno in maaragtay wayna soconaysaa wax joogsanay ma ahan annagoo ah gabdhaha senatarada aqalka sare waxaa farxad noo ah inaan maanta ka soo qayb galno oo ka soo muuqano inaan garab istaagno ciidamadeena qalabka sida iyo dagaalka ka socda meel walba oo Soomaaliya ka tirsan oo lagula dagaalamayo cadawga qawaarijta ee Al-Shabaab. waxaan hambaliyo u jeedinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo hogaaminaya dagaalka lagula jiro argagixisada Al-Shabaab ee lagu ciribtirayo argagixisada Al-Shabaab oo ah dad gobolkoodii sii dhacaya. waxaan ku boogaadinaa ciidamada qalabka sida inay dagaalka sii laba jibaaraan annagoo ah gabdhaha senatarada aqalka sare garabkoodan taagannahay. maanta waxaan soo gaarsiinay deeq raashin ah oo aan ugu talagalnay ciidamada si aan uga qayb qaadano u muujino garab istaagooda maamo Jawaahir oo ah hogaamisada dhiirigelisada u istaagsan habeen iyo maalin siday u garab taagnaan lahayd ciidamada qalabka sida dhammaan siday senataradii hore sheegtay gabdhaha Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inay soo garab istaagaan ciidamada. bismillaah waxaa sharaf iyo karaamo noo amaanta inaan soo gaarno xaruntii lagu diyaarinayay saadka ciidamada qalabka sida ee furumaha jooga. marka ugu horeysa waxaan halkan uga hambaliyeynayaa madaxweynaha qaranka Xasan Sheekh Maxamuud mudan madaxweyne waxaan ku leenahay guuleyso ciidamada qalabka sida macawisleyda waxaan idin leenahay hore u socda garabkiina nahay annagana gudoomiyaha gobolka Banaadir ee ururka haweenka gudoomiye Jawaahir hormuud ayay noo tahay annagana garabkeedaan taagannahay. waxaa idin garab taagan haweenkii oon kala harin haweenka gobolka Banaadir haweenka aqalka sare dhammaantood waxay idin leeyihiin guuleysta garabkiinaan taagannahay. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta aan la shaqeyno haweenka gobolka Banaadir ee hogaaminayso gudoomiye Jawaahir Baarqab. runtii waxaa ka socota meeshan shaqo dhiirigelin leh oo qof walba oo Soomaaliya maanta ku dhiirigelinaysa inuu ka qayb qaato qaybtiisa qaato. waa shaqo qaran oo u taalo qof walba oo muwaadin ah maanta inay garab istaagaan ciidankooda ay har iyo habeen ku jiifaan waxaan harsanayno waa ciidamadeena qaranka guulaha ay soo hoynayaan garab istaageena ammaanka ay ka shaqeynayaan waa waxaan ay nabad ugu jiifaan shacabka Soomaaliyeed. gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir Marwa Jawaahir Baarqab oo iyana madasha ka hadashay ayaa senatarada haweenka ah ee ku jira aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxay ku amaantay dadaalkooda ay ku garab istaagayaan ciidanka xoogga, waxaana ay tilmaantay in caasimadu ay udub dhaxaad u tahay dadaalada lagu doonayo in maamulka dawladnimada ee Soomaaliya uu gaaro gobol kasta oo dalka ka mid ah. maanta wada cusub haddii gabdhihii senatarada garbeena joogaan maamulka gobolka Banaadir aan nahay gudoomiye Madaalo horkacayo dhammaan waxaa naga go'an halkan waa barta saadka sahayda qalalan ee lagu taageero lagana dhiirigeliyo ciidamada qalabka sida. ammaan waxaa noogu filan in askarta Soomaaliyeed oo jiida joogana soo wacaan oo yiraahdaan waxaana soo gaaray alaabtii maama aad samayseen waa idin mahadcelinaynaa haddaad tihiin gobolka Banaadir. waxaan rabaa gabdhaha Soomaaliyeed inaan ugu baaqo oo yiraahdo ku dayda oo ka barta gabdhaha senatarada ee gartay inay noo keenaan burkii
inay noo keenaan saliidii inay noo keenaan sokortii oo ah agabka hadda aan samaynayno aadaan ugu baahannahay. Abbas Hussein, Xamar TV, Muqdisho.